jira Jabuuti ku jooga wanaag Jabuuti cadowgiin ha jabo Jabuuti oo ma jilaalo baxo Jabuuti waligiin ba jira Jabuuti ku jooga wanaag Jabuuti cadowgiin ha jabo Jabuuti oo ma jilaalo baxo Jabuuti dadka wada jecel dalbaan gaarayn Jabuuti horumarkaaga jaliil baa mahad u yeeshay madaxda jirisa amaan leh dowladda samba jidayn leh jihaysi danta cisayn leh oo shacabka jecel baa mudnaan leh madaxda jirisa amaan leh dowladda samba jidayn leh jihaysi danta cisayn leh oo shacabka jecel baa mudnaan leh
for being here with us tonight. It is a pleasure and a sense of pride for me to be standing here and coordinating such an outstanding collaborative effort. Special thanks to all tuition and the city of Maine to make this day happen will not go unnoticed. A team of 14 people from different ages, ethnicity, and political view mobilized themselves to realize the effort. 14 individuals, our organizing team, mothers, fathers, wives, husbands, and even singles, honestly, tremendously made sacrifices by joining late Zoom meetings, accepting assigned tasks, and working in subcommittees. They went above and beyond to focus on this day that unites us
to make the best of it. Our mission will be satisfied watching you laugh, dance, and share meals together as we celebrate the 46th anniversary of our country, Djibouti. However, I would like to emphasize that some of our organizers weren't able to be here tonight, but we want to say thank you wherever they are. Now, we will also want to welcome the Mayor of Lewiston, Carl Schellen, an incredible official member who is always present in the community, shows respect, and strives to include everyone in the community. Thank you for accepting our invitation and celebrating with us. Please honor us with some words tonight. Hello, thank you for having me. My name is Carl Schleen, I'm the Mayor of Lewiston, and I wanted to congratulate you on Djibouti's Independence Day. Thank you very much. I know many of you from Lewiston. Many of you are from Maine, and I think we even have visitors from Minnesota and Ohio. And so, everyone, welcome to our city, Lewiston. I'm very happy to be here with you tonight to celebrate. And my goal for this city is to create a welcoming and inclusive place that is for everyone. Thank you so much for having me. Thank you, Mr. Mayor. And we have seen all that work through your commitment to the community. Thank you again. A round of applause again for the mayor, please. As always, we are going to show respect to our country again. We're gonna stand, all of us, and do the national anthem. 46 years of independence is a lot to celebrate. We have come a long way. We're still young, and we are still living with people who have experienced independence, and that's a privilege tonight. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ساكدين وحا فرحة وينا كلنا بلارنا نسور نبني قلقا بركيسان إنه خصينا ذلك جبوتي يوم الحرب الصومري يوم خيرات إن شاء الله. Tonight we're here to celebrate our wonderful country and the obstacle we have endured to get to the point of independence. أنا كمان قاعدة وماما فوزية اسمها جوبر وحنا أهي هوية كميدا هوية يرجع جبوتي. My name is Fawzia Ismail Dubet. Ismail Dubet, and I am one of the mothers of the community. waxaan caawa u joognaa halkan xuseynaa dalkeena Djibouti iyo marxaladii uu soo maray iyo maanta uu ku sugan yahay. We are here to celebrate our country, the past and the present. Djibouti xagee ku taallaa? Where is Djibouti? qaaradda Afrika waxayna jaar la tahay xuduudda Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya.
Djibouti is a neighboring country of Eritrea, Ethiopia, and Somalia. Okay, kadibna waxa xagga badda la wadaagtaa oo ay xiriir la leedahay Yamanta. She has a Mediterranean border with Yemen. Djibouti halkaasay taalaa geeska Afrika ka mid tahay. Djibouti waa dal yar oo barakaysan oo karaamaysan oo ay ku nool yihiin dad yar oo dabeecad wanaagsan. Djibouti is a small country led by people of good nature, is a blessed is a little paradise, and the people who live there are people of good character. Djibouti waxay leedahay ilaahay ku deeqay khayraad fara badan. Waa dad karaamaysan. waa dal barakaysan khayraad fara badan buu ilaahay ku deeqay waxaana xuseynaa maanta qaabkii loo soo hantiyey looga dhiciyey gumaysigii. Djibouti has a lot of different resources, and tonight we're going to talk about what strategies did we use to regain our independence and sovereignty. Djibouti gumaysi baa yimiday gaalka Faransiiska muddo dheer si xeelad intuu soo galay ayaa uu si daran u hayay. The French came and took hostage of our country and mistorture pretty much everyone. Djibouti dadkeedii waxa uu madaragtay hamiyey inuu iska rido heeryaha gumaysiga inuu iska dhiciyo gumaystaha oo xubnimadiisa hantiyo. The Djiboutian people took the initiative to liberate themselves. Isla markaa gaalkii intii uu xanaaqay ayuu si daran dadka ugu maaday. And for consequences, the colonizer imposed severe punishment upon those who started the initiative. Djibouti silid buu ku xidhay gaalku laba albaab oo laga soo galo ayuu sameeyey. Ayuu sameeyey gumaysigii. markaasi qangaarka laga soo gelayay iyo soo sheegay xeelada maanta sikri meesha ku taalo oo loola jiray eega bilbilo eega loola jiray. To have immediate control, the French colony placed a kind of a fence to control and provided true entrances to provided a card to recognize who's coming in and who's coming out. Okay, dadku way talaabi jirin magaalada way tegi jirin waxay joogi jireen halka ka soo kaysa markaas eegi jireen eegaa loo geliyey isla markaana biina lagu kali jiray hadduu qofku taabto uu la kacayo bimacna ku dhimanaya. And there was explosive materials that people were exposed if they tried to breach the fences that the French people built. Markaasi dadkii marka ay baraarugeen halgamaagii maaragtay raggii geesiyaasha ahay Djibouti ay ku kaceen rag tiro badan oo taariikhda ay xusto uu ka hogaamiye ka yahay Maxamed Harbi dhammaantood Allah naxariisto Allah ka abaariyo waxaa la xidhay dhexda waxaa loo qabacdhigay sidii loo dhici lahaa. A group of people and their leader was named Mohammed Harbi. They made the sacrifices to train in order to regain the independence. waxaa lagu sameynayay dadka waa la leynayay siniga lagu waraayay looma abayeyna suuqa loo qaaday balse dadaalkii lagu doonayay gobonimada anagoo garabka haysanay walaalahayga Soomaaliyeed waxaa la gaaray halkii la doonayay. Despite all the torture that the French people imposed upon people who were participating in the independence, they were torturing people and placing them in fences to showcase as an example for if you do something, this is your fate kind of thing. But people kept a strong mind and despite those threats and punishment, pursued their path of wanting independence. difaac iyo dagaalku uu qaybo badnaa qayb baa maskaxdooda maalayay abwaaniinta fanaaniinta ayaa heesa ku eeganayay madaragtay waxaa markii dambana dadaalkii qaaday
حسن جولاد عطيتون الله أون حاجته يا أحمد بيني الله أون حاجته يا رك بدرو في سيالة إلا لجاري إن على السنة وبس. waxaa dhex noo xidhay shicibkii Jabuuti oo ay hogaaminayeen xasan gulad cabdidoon iyo barqad qurad iyo geesiyaal oo tiro badan ilaa ay gaadheen inay iska dhiciyaan iska eryadaan gubeysiga. There is a couple of people, Hassan Guled, which is our first president in the country, and we had Barqad Qurad and Ahmed Dini, which is the other community members, leaders. They were the leaders of the dadaalka dheer kadib waxaa gobonimada la qaatay 1977 bishii 7 We gained our independence in 1977, June 27. waxaa la yidhi kana siib kana saar calankii gumeysiga la siibay calankii Jabuutina waa la saaray maasha Allah Jabuuti And as you all know, today we are celebrating the fruits of those efforts. We should not forget, never. Alhamdulillah, Jabuuti noolaato nabadeeda Allah noo siyaadiyo calankeed maxaa jiro intii ay bulshada dhammaanteed waan ku faraxsanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Thank you, everyone. Please, everyone, a round of applause for Fozia, who defies everything. Make sure she gives us a little story of our country. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحليمي الحسن أنا هويني رير جبوتيا وحان شعلا يالكن إن عن دور كالمدود كي يلاقو هلكن كي دارا شرفت لها ay ku dhinteen ee loo soo maray markii aan qarannimadeena qaadanaynay anaguna kusii fogaanayn waxaan horta halkan salaan qiimo leh uga dirayaa dhammaan qabanqaabayaasha barnaamijka soo qabanqaabiyey sidoo kale dhammaan shacabka reer Jabuuti meel kasta ay joogaan waxa aan leeyahay in wanaagsan insha Allah sanadkiisa farxad iyo qaanqaan iyo waddankeena nabada ilaahay ha inagu sumo inta dabadeeto waxaa jira dad walaalaheena Soomaaliya oo ahayd wadankii maaragtay markaan qarannimada doonaynayna garab joogay oo iyakuna ah 16 Juun iyo 1 Luulyo oo u dalbaadayaan iyakana waxaan leeyahay sanad wanaagsan ciid wanaagsan inkana sida oo kale waxaan leeyahay waan salaamaynaa wadanka sanadkiisana farxad iyo faafan ilaahay inkana haynagu soo aamin inta hadii aan dhaafo daan in yar ka xasuusto halgankii dheeraa ee la soo maray dalkan wax ma aha lagu soo koobi karo laba kalmadood iyo sheeko waa waqti dheer ayay noqonaysaa laakiin anigu inta aan ka xasuusanahay waxa weeyaan Allah u naxariisto Xasan Guled Cabdidoon iyo Diini la u naxariisto iyo maxay ahaydey rag badan oo imanka ahaan magacooda odayaal badan oo niqsanahay intii aan halkan ka soo ilaha u naxariisto sidoo kale raggii saxa maaragtay usoo qaadir sida maxamed cabdi roob la qashiile Saciid Axmed Qoor Nimca Jaamac Faadimo Axmed Dembiil iyo qaar kale oo badan Cabdi Nuur Alaale dhamaantood waxa aan leeyahay iyo Maxamed Aadan Dugsiye Fadun Ducaale iyo dhammaan kale oo hadda ana xasuusanahay waxaan leeyahay kana intii dhimatayna Allah u naxariisto inta noola waxaan leeyahay salaan mar halkan uga soo gudbinaya waxaan leeyahay ummadii hay dubkiyo diin qura wadaagtay duubni waxaad ku weydeen docdo inaad ku gaadhaan dowgii la soo maray dib haddaad u raacdaan darxumo iyo dhibaato iyo dalanbaabi mooye ayaa doobi xoorliyo danku qabay gumaystaha war waxaa naga dardaarana deyrkii silsiladii duway ayaan la soo kabin ninka maanta dalab leh u tudaaya waxaan jirin amba diran shisheeyuhu waxba yaana loo digin hadda baasho qololkee dhamacdan ku dubi iyo anaa dabanu xidhaye daawada halkuu maro kama daalo socotada dayran mayno dhulkeena dib u laaban mayno ninka diiday samahow annakuna diyaarnahe haddii xumo la doonana degmadeedii baa nahay ruunoo daboocin kari waa dambas noqotay beentuna xaqeenii daahsana
ma dilaacay maantaba ma soo duxay nasiibkii dusha lagaga taagay waxaan taa u nidhi si ay dadkii ishaystay ee dalka Faransiiska joogay ee de reer Djibouti wadaha inay u heshiiyaan ayaan taa u sameynay kolka waxaan nidhi wuxuu macalinkeeni majliskii New York iyo madaxda Afrikaanka iyo maqashiyay dunidii daduu miiray cadawo lagu meeshay siligoo ka martay dhulkoodii iyakuna midnimadiyo mabda ah wadaag iyo jecel madax banaanida sida maalamaalay intuu malabku dacar noqon miyo mudiir waxay ahayd xasan guuleed oo dawladaha u baxayay oo isaguna hawshaan ku jiray waxaa kaloo jirtay madaxda Afrikaanku marka ay noo imanayeen ayaa jiray dana dawladii Afrikaanka ayaa dad soo diray oo dadkan la cadaadinaya ee dhibka haysta soo eega ayay yiraahdeen marka waxaan u sameynay oo nako ka ahayd dhaliirtii waa maxay marka ahaan halganka ku jirtay maxay ahayd waxaan idin leeyahay heeso yaan u sameynay waan u heesi jirnay waan soo dhaweynay meesha la yiraahdo ma adaragtay xumbuli markii hore libaaxida loo oran jiray ayaa lagu marti qaaday Afrikadii oo dhan marka waxaan nidhi waa kow wafti midoow waxay noo soo wakiisheen walaalaha Afrika ee waa kow waa noo wanaag waa noo waxsiin iyo weersan imakana wafuuday waan idin waramaynaa waxay kii Angooliyo ka wiladay Mozambique anuu wali haysta waagii guduutaba wasus baan ku noolahay wadku nagama guutago waanta nabadana wali waan sugaynaa inkastoon waraabaha hidlo wixii lahayniyo waabaan ugu xidhanahay iyo waayir korontale wax kastoo na gaadhaba maxsan maayo jeeroon wadanka iga dhiciyee idinkuna walaalow waxaa idinku waajiba inaad naga warhaysaan waa Afrikada waxaan u sheegnaa cabdeeno ogaadan ka lahayn marka waxaan ka nidhi warwaayaha dhulkaygana waxaa igala sii weyn Afrikay walaaciyo wiirada shisheeyaha adiga isku wacan wiilkaaga kaliyahe iska waafsha nacabkana adiga waqtiha jaro u wanqala gumaystaha itala waafi noqotiyo haddii waxa la oofini raggan weerartamaya nagu dili waxeeni umaad warwariyooteen wadanada galbeedka intay laba walaala wajiga isku galiyaan ku dulgoyn gulwilaha wadaasha ariga kawl wali cideede wacdaraha cadaawaha kawaantow Afrika qorwaaniya wax sheeg waxba iniima reebine amba weel gun marano ragna wabi ku dhul noqda aba noqdo walaalkood garta waajibkiisa anana weerka naga fura marka waxay ahayd nacam dimaranka ku wada xidhnay nacaawiya baa Afrika dhibta baan haysay inaguna walaalka dadkii dilayha noqonina halka bay ka waday saabay way socotay waxaan haddana nidhi calankii baa soo adoo sheekada way isla soo waday heesa badan wax badan baa jiray waxaan isnidhi haddana halkii markaan joogno waxay ahayd calankii oo soo dhawaaday hadda waxa calankii soo dhawaaday waxaan nidhi 100 sano iyo dheeraad siyaabihii na soo maray surmi iyo haraadkii silc iyo durxmadii rabbi nooga sahriyo waa ka cirkiida ay sabano aanan gabo odhan ee muddo guushi laalay haddii maraqii laga furay kuwii muusanowgii dhexda mara ku duubtee u miglanayay godolkiyo ka afuriya maatida marka waxay ahayd wadanka dad baa u soo halgamay calankiina waa kan uu dhashay dawaayna wax laga siiyo ina dadkii dhibaatada ay ku dhacday dhankeeda jabhada noqoto kuwii wadanka dhexdiisa noqoto ina wax loo qabtay taan halka baan ku dhaafay haddana waan soconay sheekadu way sii socotay calankii de waa la helay calanka la qaaday hijinay oo sare kacay halkii waxaan wax ku xafidi jirnay meel la yiraahdo maxay gabood yaa la isugu kaayay halka baan intii calankoona ku xafidi jirnay heesaasana wadankana lagama saaro waxay magahan aan halka ku soo dhameyn karayno ma haddii haddana marka ugu dambeyn calankii marka aan joogno waxaan nidhi dhamow calankaygow maalintaad dhalataa dunida aan la dhimo dhibtii waaye igaadhiyo dhacdadii kululay dhalandhoolkii cadaawe ciilkan waaye la dhuubtiyo dhabarkii layga raraayay dhamow calankaygow adiga iga dhaxsho daraartan ku helaa dhereg iyo raaxo dheerfa iigu horeysay habeenkii lagu dhaabay dhacdadii ku horeysay haddaan sii yar dhex qaado maxaa dhaawacna gaadhay dhamow calankaygow imisaa kuu dhimato iilka maanta dhex jiifta imisaa dhakafaariyo dhiilo aan darisno dhalanteedku badnaa maxaan dharaaraha qaar sidii neef dhugatoobay xorayntaada u dhuubtay
oo ilmadii iga dhacaysay dhulka ay qulqushoon dhabanku haara ku yeeshay wixii oo dhib ahaa dhabtii waxaan ku ilaaway maalintii lagu dhaabay endhaayahayga ku saaray dhigay oo iska dhaafay dowlad baa ii dhalato dhabtii qaran baan helayo dhan kastaba ilaalo askar baan dhigayo kun baan xil u dhaarshay ee dhammow calankaygow rag baa ku dhimanaye dhabarkooga ku dheel ha dhicin ha dheelin weligaa islo aamiin. Okay, iminka waxaan samayn doonaa rabiista compost afka rafiskaada Soomaali xalfadihii kubadii cagta la soo ciyaaray ayaa la guddoonsiin doonaa kooxdii soo bediyey iyo dad kale oo noolayn doono oo la siin doono waxaan kuu sheegaa certificate. So hadda waxaan ku yeeri doonaa kubadii cagta la bilaabi doonaa horta waxaa koobkii bediyey waxaa ka ciyaaray dhowr kooxo waxaa ku guuleystay kooxda waxaan kuu sheegaa Sakhir oo ka badisay kooxdii Djibouti ka badisay 2 gool 3 gool 2 waxaa loo doonaa kabtanka kooxda Xasan Gulaan waxaana guddoonsiin doonaa koobkaasi Cabdulqaadir Jaamac Cusmaan. Inkana waxaa sii doonaa qaybtii labaad ee dhisaysa inaan qodlahay waxaa u yeernaa kabtanka kooxdaasi waa Maxamed Xisi. All right, thank you everyone. Congratulations again to Degel team for the winning of their game. A round of applause again for them, please. Now we're going to go to our next agenda and tonight. So we are going to give some certificates to people and recognize them and their journey before independence and after independence. We are going to welcome Sirat Galab, who is one of the military women. Sirat has served 27 years in the military. She's a woman, and she was actually the first woman in her group to start singing in front of the president. A round of applause for her again, please. We are also recognizing another member of the community. His name is Captain Hussein, as all of you know him in the community. He was a Marine Army for the last 34 and fought for the independence of our country, Djibouti. Captain Hussein participated in the LPII, la Ligue Populaire Africaine pour l'Indépendance, between 1972 to 1975. He is actually an active member of the Liberation Coalition who migrated and Mercantil. All right, okay. Go ahead. Daniel Colino will be the one giving him the certificate. Another honoring one of our very active member in the organizing team, Bashir himself, is going to get a certificate by Abdulaziz and his spouse. Please come join us to give the certificate.
applause for them, please, again. Thank you, everyone. Please, Mr. Mayor, join me and really and truly and the reason why we put this person as the last person is because this person we are going to recognize right now have put so much effort for this day to come a reality. And that person is no other but Hassan Brooke. Thank you so much, Hassan, for all the effort you've done. And as we waited for so long, let the night start, and please start by starting to serve yourself, and the floor is open to dance until the end. Another time, introduce from myself became sphere and say things hour and hour of the like any time. That's we have a program issue in the beginning of the do that. So introduce from time, one to go to free and thank you guys. Go
Look at you.
السماع الروح تجيب سكري حيوان
عبد الله واحد جوكتا عاوة فرحتي أما calanka Djibouti oo ah an lixiyo 40 jirkii ka soo wareegay markii Djibouti calanka qaadatay ka waran adiga ka shucuurtada caaw Assalaamu alaykum marka ugu horeysa aan shucuurteeda aad iyo caabo faraxsan tahay maadaama aan isku yimaanay dadkeena reer Djibouti caawan ku xusayno Ramada Hotel gaar ahaan diaspora ku nool Western Man reer Djibouti farxadda caawa ummadooda arkaysa caalamkana walaga arkaya dadkuna maanta calankooda aad buu xusayaan aan ka taaganahay sanadkii maanta 46aad aan ka taaganahay badonskeena xilligan aan qaadanay go'aanimada aan qaadanay maanta aad baan xusaynaa ana shucuur aad ay ku tahay aad baan faraxsanahay ummadda reer Djibouti aan isku yimaatay iyo caalamkuna arkay dadkii Mareykan la noolahay quruxdan tusnada waa qurux waxa weyn maanta tusaysaa in dal aan ka soo jeedno xuriyada anaguna meel walba xurnimadeena ku xusayno gaar ahaan Mareykan tahay iyo haddii caalamka tahay
عبد الله كورن قبن قابضة يسكت بريد كيتا لك برنامج كان لقلاي مدامه أو عاو أسي بلارن لقى حسي هوتيل كان رمضان هوتيل dadka soo diyaariyay iyo waxa soo dhan balmaxay kula talmalayn hawsha inta la kala wallahi aniga dadkaasi dad waxa weeyaan habeen dharar buu taaganaa hawshay qabteen waa hawl aad u qurux badan atano hambaliyaan leeyahay hambaliyaan ondiraya waa maasantihiin I do appreciate all your job yaan leeyahay shaqadiina waa shaqo qurux badan yaan ni hambaliyeenaya. Can you speak English a little bit? Okay, tonight like we celebrate Independence Day since we went our free independence 1977. We all now 46 years old, and I'm very excited how to celebrate tonight in Ramada Hotel. Everybody come and join and celebrate independence tonight, and also I do appreciate the job all the team that tonight they show us and they show everybody come here and celebrate our independence, our freedom and our independence and Djibouti days. I'm very excited. I'm very happy tonight. My name is Mohammed, and I live in Lewiston, Maine. And today was actually really nice. It was a nice night. Everything was amazing, and everybody was so nice, so happy. Like, I loved the vibe. It was a great experience for me. Bonne nuit et allô tout le monde. Je m'appelle Stéphanie Triss-Gill. Je suis la directrice de Intwork et je suis une invitée ici ce soir à la fête pour l'indépendance, pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance de Djibouti. Et vraiment, c'est un événement incroyable pour célébrer la lutte du peuple djiboutien, qui est encore un événement récent. Il y a des gens comme moi qui étaient encore déjà vivent à ce temps-là et qui participaient, comme beaucoup de gens ici, dans la lutte. Et donc vraiment, c'était une grande joie pour moi, une Américaine, de voir les gens ici, le peuple incroyable djiboutien qui vivent à Maine pour célébrer un pays important et incroyable dans la lutte contre le colonialisme. Et vraiment, c'est exceptionnel que tout le monde est convenu ce soir pour le célébrer. أبيني مسبتها من قد جيني جحسنا جبوتي بنديرها ساكي هايروي جبوتي بنديرها هايروي معنا للسكديني أمريكا لا يسكديني حساكي هايروي أمريكا للسكديه معنا للسكديه قد جا. My name is Stephanie Triss-Gill. I'm the founder of Intwork, a diversity recruiting company, and I'm really delighted to be a guest here tonight at the Djiboutian Independence Day. This is an event that I look forward to every year. It's been a couple years since COVID, since it's been an event with dancing and celebrations like this. But this is such an important event. First of all, it brings together so many wonderful, talented people from the Djiboutian community to see each other and build community, but it's above all such an important commemoration of the independence fight of the Djiboutian people, and it's an honor to be here tonight. Thank you.